shan kursi oo kamid ah kuraasta deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Qabsoomida doorashadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar kamid ah mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland, oday dhaqameed, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Markii ay soo ilaatay doorashadan oo aan mikrofoonka muuqaal baahiyaha Jubbaland la dhexmarnay qaar kamid ah mas'uuliyiintii ururada bulshada ee ka soo qayb galay doorashadan ayaa soo dhaweeyay qaabka ay u dhacday doorashadan. waxaan aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan ay doorashadu u socoto oo ay u hogaaminayaan gudiyada labada heer. waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, kuwa dowlad goboleedka iyo kuwa federaalkaba, oo runtii haddii aysan ayaga ahayn ayna suuro gasheen in doorashada la qabto. waxaan rajaynaynaa ayagana waajibaadkoodii qaranka iyo kii dowlad goboleedkaba inay si fiican u guteen. waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadweynaha reer Jubbaland ee kuraasta leh sida deganaanshaha ah oo wanaagsan tartankana u jiro, isla mar ahaantaana dadkuna ay codadkooda u dhibanayaan. insha Allah waxaan rajaynaynaa inta hartayna in si wanaagsan ay noogu dhammaan doonto. waxaan ku sugannahay hoolka weyn ee Daawad, halkaas oo ay maanta ka socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkaas oo maanta lagu dooranayo kuraas dhowr ah oo dhowr xildhibaan ah. runtii hadda halkan waxaa lagu doortay kursiga uu nambarkiisa yahay Hob 72 ayaa hadda la doortay. sidoo kale waxaa la doortay Hob 130. sidoo kale hadda waxaa la doortay Hob Eber 79. laba kursi oo kalena way dhiman yihiin sida kuraasta 112 iyo 136 ayaa hadda sugaynaa. doorashadan waxay u dhacday si aad iyo aad u qurux badan, amnigeedana heer sare u ahaa. waxaa ka soo qayb galay halkan labada gole ee baarlamaanka labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland, golaha wasiirada, golaha baarlamaanka, odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka, ciidamada amniga oo kala duwan sida ciidamada AMISOM. amnigana wuxuu ahaa 200% aad bayna u fiicneed. dadka codeeyay iyo dadka cod kala siinayna wax inaba yani dhibaa kama jirin. si sharaf badan oo qurux badan ayaa mataqaanaa ay bulshada ay ergada u codeeyeen. waana ku faraxsanahay dadka maanta soo baxay. maanta taariikhdu tahay 22 bishii 2022 waxaa Ilaahay noo suura galiyay shantii kursi maanta aan maxay tahay doorashadooda u taagneen in Ilaahay si nabadgelyo ah uu noogu soo gabagabeeyay, taasoo Ilaahay xaqiisa ka suura gashay iyo amniga oo aad iyo aad looga shaqeeyay. waxaan filayaa kuwii hore iyo kuwa dambaba inuu sida Allah nooga dhigi doono. marka waxaan aad ugu kalsoonahay maxay tahay sida ay doorashada u dhacday ama kuwa dambe u dhici doonto. anagoo ah korjoogteynta arrimaha bulshada iyo hay'adaha ka socona, waxaan cadeynaynaa in meesha ka socoto doorashooyinka Soomaaliya ka socday la mid ah, taasoo ah tu lagu farxo oo wadanka Soomaaliya rabna inay dhinac u jihayso. 3 sano u dambeysay 2020 ilaa 2022 wadanku wuxuu galay khalkhal doorashadan darteed buu u galay. si wadanku markaa uu soo laabto xasiloonidiisii iyo dawlad la aqoonsan yahay uu soo laabato, waxaa maqasab ah in doorashada la boofsiyo ama waqtigeedii lagu soo gabagabeeyo. Leila Umar Abdullahi, Jubbaland TV, Kismaayo.